qisas Orobo ka dhacay oo dadka hadda Soomaalida in badan oo kamida Orobo America hadda tagileed nolol raaxaba ku noolaa leh qasul fikriga macnaha hadda ka taagan taana ay ku cajab gelisay dadka Soomaalida in badan oo kamida muslimiinta ah gaalada xoolaha iyo dhaldhalaalka ay haystaan iyo awlaadda ay dhalayaan iyo aad u tacajub geliyay marka Allah subhanahu wa ta'ala waa uu ka digaya in gaalada hantida ay haystaan iyo ilmahay dhalayaan ilmigaada iyo himadaada intaad siiso yaa Orobo America ku geeyo mar nolol raaxada aad ku noolaa leh qasul fikrigaana hadda Soomaalida in badan waa gashay taasna nahyi adag baa ka yimid fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum rasuulka sharafta lahu gaalada xoolahooda iyo caruurtooda ayaan ku cajab gelinin inma yuriidu Allahu liyu'adibahum biha fi alhayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun ilaahay wuxuu rabaa in nolosha adduunyada uu ku cadaabo maalkooda lagu cadaabaya gaalada waxa kale lagu cadaabaya awlaadoodii ilaahayna wuxuu rabaa in naftoodu ay adduunyada ka baxda ayagoo gaala ah tasaqa anfusuhum wa hum kafirun mowqifku marka waa cad yahay Allah noo sheegay subxaana waxa laga yaabaa inaad isweydiiso waa kuwan gaaladu raaxaysanayee see maalkooda loogu cadaabay waxa laga yaabaa inaad isweydiiso see ilmahooda loogu cadaabay laakiin tusaalaban idin tusinaya ilaahay cid ka run sheeg badan male subxaanahu jalla wa ala maalka xaqiisa haddaan idin hormariyo laf dhabarka bilaadanku ku nool yahay maalka weeyaan gaaladan saa u tamashliihee dhaqaalaha haysata haddana maalkoodii lagu cadaabay see loogu cadaabay waa ogtihiin gaaladu ayagoo dhaqaale haystaan qisaada koror ka dhacday dalka Faransiiska wuxuu maalqabeen oo gaal ah Faransiiska u dhashay u dhisay piano 120 la dhisay 120 ka piano ninkii hantida lahaa ee dhisayay markii dhismadu ay dhamaatay wuxuu yiri idaacadku ee marka la furayabo inuu mid iska soo tuuro oo sida ku baqtay waxa sugaya waa cadaab Allah sugaya ciyaadan billah ninkii marka dawladii waxay samaysay iclaankay bixiso waxa la yiri sarta dadka laga ilaasho ninkii dhilay oo isu soo tuuraa soo dhulka ku baqtay markuu yimiday jeebkiisa xaanshe laga soo bixiyo waxa ku qorneeday noloshan adduunyada raaxo waa ka waay oo maxaa ka maqnaa isweydiin 40 sano dhaqaale la bixinayo u baxshay 120 biyaano buu dhisanayay haddana waa isdilay waxa ka maqan ma garan waxa ka maqan waa nuurul iimaan masuuqa laga soo gadan karaa marka aad dhaqaale haysato badroonita nuurul iimaan yaa bixiyo soo ilaahay ma baxsh waa ka nabiga lagu yiri ma kunta tadri mal kitaab wala al iimaan walakin ja'alnahu nuuran nahdi bihi man nashaa'u min ibadina ma aadan ogeyn kitaab wuxuu yahay iyo iimaan wuxuu yahay annaga ciidaynu doono adoomahayni kamida laabtiisa gelino marka nuurul iimaan Allah nagu قال waxaan heli karnaa alxamdulillahi alladhi kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala hadnin lahayn ma aan ba ilaahi insha Allah walalihi waa yimiday insha Allah qisada inaan dhameystirana aad baan u jeclaa maadaama maalka haddaan idin tusiyo gaalkaas isdilayo inaa haddana aragtiin si awlaadooda loogu cadaabay laakiin qisada inaan dhameystiray noqonaysaa aan malaynaya haddii walaaluhu diyaar yihiinna waa layso insha Allah qisadan dhameystiray si aan maalka iyo xoolaha idin tusiyo insha Allah barakallahu fiikum maalka marka ninka muxuu isu dilay nuurul iimaan baa ka maqan wax la heli kara maaha nuurul iimaan suuqana lagama soo gadan karo ilaahina galladaysta ma hadaali awlaadooda see loogu cadaabay saa ogtiin gaaladu birrul waalidiin wax ay yaqaanin maaha in waalidka loo baarinimo sameeyo laakiin loo baarinimo sameeyo هذا على مركي إخوتي في العقيدة إن والدينتو مركي لبات دلان أما سدح دلان قالوا عربط بيسكو دران ساوكتهين المها مركي كورانا فطيلا ذي كتنتان إيا بارك والد إيا ورق مهيان بس كان علي مركي هذان إنك قشيكي دلك إنجليسكو الشيخ شيوخ ذا كمي ذو إنو قشيكي ساوكتهين قالوا iyaga isdilayo ilaa hadda mashiina laga sameeyay oo rab oo dhan ay mideen oo noogu sheekeeyay inaad ka warqabtaan ay suurtagal tahay mashiin dadka lagu dila xagga laga soo galaa inta laga bixina kii qof nolosha adduunyada naca
telefishinka laga soo dayey iclaamu bixaa wuxuu isu dilay buu sheegi hadda nafta un baa lagu celin waa qaab ka fudud qaabkay isu dili jireen marka tacdiibka xagga awlaadda see loogu cadaaba taatii waa xoolahoodii iyo ciriiriga heesta iyo qaabkay isu dilaan iyagoo dhaqaale heestaba laakiin awlaadda see loogu cadaaba ingiriiska ka yilay waagii sebtembarka bacdu ilmihiisii kala soo cararay dalka noogu yimid wuxuu yidhi waxaa ingiriiska ka dhacday hooyo waayeel oo da' noqotay alxamdulilah hooyo waayeela ayaa waxaa dhacday in ilmaheedii ay baararka ka tumanayaan ayaduna ay guri iskaga degan tahay waxay dhacday buu yidhi guryaha gaaladu waxay yaqaaniin eey iyo mukulaal baa la jooga wuxuu yidhi habartan yani mukulaal baa guriga la degay hooyadii marka way baktisay wax micnaha dharka ka bedela male waa rafaahsantahay ilmihiina hoteeladii baararkay ka tumanayaan habartii gaasheed sidii isaga dhimatay markay dhimatay qolkii mukulaal baa kula xirano ayadana kacaddaha loogu yimido markii loo yimiday waxaa la yidhi habartan ilmaheedii baa lagu cadaabay sababka loogu cadaabana ilmihii maanta biril owlaad ma yaqaaniin owlaaddii oo tarbiyadeeda yani gaala dhasho weeyaan marka hooyadii waxaa lagu cadaabay ilmaheedii wax u tiraa ma leh annaga waa ogtihiin waayeeladana dhalay hadday da' noqdaan boggay baarkan ku xambaarayno imise ajir iyo fadiile laga helaya baarinimada waalidka loo sameeya janna lagu mutaysanaya waliba hooyada waa sii ajir badnaatay taana waa ka wada dheragsantihin tan marka ilmaheediyaa lagu cadaabaya oo ilmihii waa raaxaysanayaan waa tumanayaan oo bakti bay ku jiraan ayadana waxa weeyaan saasay ugu jirta marka nimcada ikhwatii ilaahayna siiyey inaan ka mahadinno wey